بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta insha Allah waxaan qaadan doonaa cashirka labaad ee buugga marketing management 14 edition. waxaan qaadanaynaa chapter 2. Chapter 2 was the most important chapter in marketing. waa chapterka ugu muhiimsan ee maadada marketingka. waa chapter kamid ah chapterada ugu muhiimsan curriculumka ama manhajka ee MBA-da ama business studieska. wuxuu laf dhabar u yahay horumarinta ganacsigaaga ama horumarinta maamulka ahaysid. waa chapter ka hadlayo suuqgeynta aad ka shaqaynaysid inta aadan wax qabanin ka hor inaad qorshe dejisid. wax kasta inta aadan qaban ka hor waxaa u baahan tahay in aad samaysid plan ama takhطيط ama qorsheyn. Soomaalidu waxay dhahaan inta aadan falin ka hor ka fiirso. kana maxaa waaye dejinta qorsho in la dejiyo. Developing marketing strategies and plan ayaa laga wadaa. Okay, marka taas ayaan ku baran doonaa chapterkan insha Allah. arrimaha ugu muhiimsan chapterkan looga hadli doono waxaa kamid ah wax la dhaho erey cusub oo ama terminology cusub halku dhig ama oo ah customer value. maxaa laga wadaa customer value? qiimeynta macaamilka. How strategic planning is carried out at different level of organization. qorsheynta ama qorshe dejinta sida u shaqeysaa. waa maxay marketing plan? qorshaha suuqgeynta maxaa la dhahaa? marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa wax la dhaho the value delivery approach. dejinta qorshaha value, qiimaha. waxa la rabo maxaa la iska rabaa haddaad tahay suuqgeyn maanta ka soo qaado kale. For example, dadkii dhan waxay ku fakirayaan ama to become a manager. qof kasta wuxuu jecel yahay inuu shirkad ka noqdo maamulo. isbitaal weyn haddii maamul laga dhigo you are very happy and good salary 2000 hotel weyn laga dhigay shirkad diyaarada laga dhigay. adaa waxaa furtay small business, small restaurant, small gift shop. waxaa furtay hawl yar adiga leedahay ayaa furtay. you want to be successful. waxaa rabtaa inaad noqotid qof naajix ah. ganacsigaas aad furtay inuu kaa qasaar martid. waxaa rabtaa ganacsigaas aad furtay in uu guulaysto. adinka ardaydan hadda waxaa tihiin project management soo maaha arday project mashruucaas project lagu dhiibo. waxaa rabtaa inuu noqdo mashruuc naajix, inuu noqdo mashruuc guulaystay. sidee ku guulaysan kartaa? guusha waxaa ugu muhiimsan in aad heshid wax la dhaho faa'iido badan. faa'iido badanna waxay ka imaan kartaa iib badan. iib badanna wuxuu ka imaan karaa macaamiil badan. macaamiil badanna waxay ka imaan karaan macaamiil la qanciyo. macaamiisha markii la qanciyana waxay ka imaan karaan macaamiisha in la siiyo wax la dhaho qiimeyn. marka aad macaamiishaada qiimeysid ayay kuu qancayaan. markay kugu qancaan ayay soo badanayaan. marka ay soo bataan ayay wax badan kaa iibsanayaan. markii wax badan kaa iibsadaan ayaa faa'iido badan keeni kartaa. marka maxaan dhigi karnaa hadafka ugu dambeeya oo la gaarayo oo ah inaad faa'iido badan heshid waxay ku xiran tahay in marka hore macaamiishaada aad qiimeysid. waa falsafada uu aaminsan yahay ninka la dhaho Philip Kotler oo buuggiisa aan aaminsanahay. ganacsigiisa dhan ama falsafadiisa ganacsiga dhan wuxuu ku dhis wax la dhaho business value ama customer value, qiimeynta macaamilka. maxaa laga wadaa marka qiimeynta macaamilka? waa example wax terminology aad u weyn, aad u baahsan. For example, maanta waxaa furtay maqaayad cusub aad furatay, xoogaa lacagaa dheheshay, intaasna shaqaale ahayd. waxaa rabtaa inaad furatid your own business adiga ku gaar ah. but waxaa rabtaa business unique ah, business ganacsiga ku cusub ayaa rabtaa inaad furatid. businesskaas aad rabtid inaad furatid oo maanta ganacsi oo suuqa ku cusub. waxaa furatay laundry, meel dharka lagu dhaqo. waxaa furatay maxaa la gift shop. gabdhaha waxaa furateen maxaa la make up furateen. make up magaalada ku taalo. macaamiisha adiga ku imaanayo waa inaad siisid wax dheeraad ah. waa inaad siisid qiimeyn. waa inaad siisid qiimeyntaas ayaa waxaa lagu heli karaa wax aad u tiro badan ayaa lagu heli karaa. wax badan ayaa lagu heli karaa.
ayada guusha dhan waxay ku xiran tahay macaamiisha inaad qiimo siiso marka barnaamijka dhan maxaa lahaa the value delivery approach ama the value delivery process marka erayan technology ingiriiska ardada markay arkaan ama ay fahmi waayaan waa wax simple ah maxaa laga wadaa wax fudud waa qorshaha ama habka qiimeynta macaamilka waxaan idin sheegi doonaa ilaa 7 example 7 misaal oo qiimeynta macaamilka sheeka in kaga sheekayna marka hore xaafadda waxaa degan ka soo qaado kale bahasha waxaa la hoos in laga soo fahmo gabadha degan gabadhaas waxaa la fartuun waxay saaran tahay dukaan wiil waxay saaran tahay la dhaho geedi iyo waxay saaran tahay xaafadda dukaankan waxaa ku yaala wiil oo leeyahay farxaan fartuun bishii carafo iyadoo lagu jiro oo taariikhda ay marayso July ama meelahaas ama bishii ay kusoo aado 28 xaaji qaban wuxuu ka shaqeeyaa shirkad kamid ah waa mishaari abtiga jawhar degan iyo xaaskiisa oo xajka u socda kusoo dageen waxay leeyihiin maanta iyo 2 maalin inta joogina kadib shirkad diyaaradaha ayaana balamisay kadib ayaan bixi doonaa mana u soo sheegin 4 saac subaxnimo ay kusoo dageen fartuun biilka waxay ka qaadataa geedi oo adeega bishan ayay ka adeegata biil yarna ka qaadataa si goosaarta ay u soo gato markii abtiga u maadeen fartuun adduunka la wareegtay xaajiga xaajiga wuxuu dhahay anaa waxaan intaas u deyn ugu leeyahay mushaarkiina ma qaadan bishana salary advance waa qaatay bisha koodii wax ma helaayay 2 bariya ku dhimanay fartuun wax allaale wixii abti ku baxo deeqana bixinaaye walaalay xafada adrinta siigaale taan badan ku yaale isdabar waliba wiilka dukaanka intaas 5 sano aan saarnin geedi u tag una qiimee doonaa maxaa waaye you will give us a customer value oo nasiib doonaa samaan maxaa sameysay markaa meesha tagtay ayaa waxaa aragtay waxa uu geedi muxuu arkay wajiga ku tuuro wareeg fartuun maanta saak biilka ma qaadan lahaa hadda waxay u socotaan walaalow waxaan ka rabaa oon kugu imaaday arrin hay maxay ugu maatay walaalow martay soo dugtay hay maxaa rabtaa $20 ku ina isiis hilib iyo waxaan soo gadaa abti iyo xaaskiisa iyo habareer midda kale waxaan ka rabaa caano booro iyo wax badan inay isiis bur iyo bariis iyo biilka gabagabo ka ahaa waxaan rabaa inaan wareeg gabareey alaalka iga bax fartuun ayda adduunka la wareegtay guriga abtiya u joogo yaan maxaa lahaayay xaajigan wax ma hayo dukaanka ay saarnay 4 biloodna wax ma siinin waxay dareentay in ninka dukaanka iska leh geedi in uusan qiimeyn he didn't give her a customer value ma qiimeynin qiimeynta la sheegayo ma wax lacag oo wax free ah laakiin macaamilka wax badan ay u keenaysaa markii xasantahay dukaanka bilka ka soo keenay farxaan la wuxuu fartuun saak wajiga ma fiicna maxaa ku dhacay waqtigaas soo jirnaa socotaa kastir waxbana ma qaban kartaa arrintaana farax ka qaad kaasoo dhamay ii sheeg maxaa jiro dariska inta saatahay ku oga maxaa ku dhacaya problema ku haysto adii xaaji ma sagaashamay arrinta uu sheekayso wuxuu dhib male 20 shayga konton door qaado dukaanka wax kasto yaalana ka adeego mushkil ma leh wuxuu si customer value even although she's customer kiis ma ahan baayada oo ma wax ma ka adeega jiray laakiin xaafadu ku arki jiray waa prospect customer markaas customer ma ahan customer ku waxa mid ka gatay iyo mid ka gada doono kuwaasi waa rabtay wixii la soo adeegatay xaaji galabtii uu ka imaaday baastadiisa hilibkiisu caanibiis waa jawi asagta waa isbedelay asagta waa qow markuu qowdha war fartuunay maanta saanya ku soo qiimeeyay oo waxaan dhan ku soo siiyay aytar wiilkii geedi waa ay qiimeey waay laakiin waxa ay qiimeeyay oo maanta wax badan ii sameeyay farxaan anna maxaa ka rabtaa go'aan waxa ku gaar bishan laga bilaabo biilka ka wareejinaa iyo adeega dhan ninkaas maxaa waaye giving a value for the first time then you will get a value customer value helaysa giving and getting waa marka diba helaysa gabadha xaafadda dhan qofkii imaado cid badan qaraabay soo dogteen farxaan leh hal aad farxaan nin fiican waay ninku qiimeynayo waay adigana ina ayada maxay sameynaysaa marka soo heshay his customerkiis waa bateen dukaankiisi waa bulaalay muxuu ku bulaalay qiimahaasi uu sameeyo Kotler ninka la haayo aad u wahda this is very very small ninkaas falsafada oo doortay he choose a value oo doortay maxaa waaye inuu customerka uu sameeyo credit inuu sameeyo waa deyn inuu siiyo kaas ayaa waxa loo yaqaanaa marka customer value kadibna wuu provide gareey kadib waa shay for large companies shirkadaha waaweyn ayaa jira for example waxa furatay adeeg glass ardada project waxay dhaheen inta sano shaqaale ka inay hay'adda mid lacag soo awrin ilaa $100,000 waxaan furinaa meel maqaayad weyn maqaayad fiican furteen laakiin waxa maqaayad soo darteen gym free qof kasta oo maqaayadan wax ka cuno wuxuu helaa gym free ama internet service free ama wuxuu helaa adduunka waxa jira maqaayad wax badan ku dara bowling waxa la hayo waxyaalo badan lagu ciyaaro
snooker waxyaabo meesha lagu ciyaaro ayaa jirto ee ku dartay oo entertainment ama waterfall wax qurux badan ku dartay meel gaar ah oo la galo ayaa ku dartay at least you add ku dartay something new add value wax la hayo maxaa samaysay ninka alla maqaayadaas maqaayadna qiimayso waa quruxda ma aragtay soo quruxunta ma aragtay sawir aad gali kartaa waxaas dhan waxa uu tala gashay macaamiisha qofka waxaas ma dhahayo qof afka dhahayo ma jirto laakiin qalbiga ayaa laga dareemaa strategically maqaayada nimanka iska lahaay ayaa waxay dejiyeen qorshe dejiyeen ka soo qaad example kale carwo ayaa la furay carwo maamulka waxay dhahaayeen maxaan dheeraada ka dhignaa what adding value ayaan u sameynaa macaamiisheena you choose the first kadib waxaan sameynaa free delivery iyo free installation qofka jiif naga qaato dejinta iyo raridda iyo dejinta wax in free waa marka ganacsiga oo dhan maxaa laf dhabar u ah as aninu aaminsanahay falsafadan Kotlerna wuu keenay ganacsiga oo dhan waxaa laf dhabar u your business can sustain for long time if you add a value hadda maanta shirkadda hormuud maxay value ee heerka ku gaartay goormeena kacday hormuud goormeena qoto dominant suuq qoran goormee qabsatay hormuud suuqana waxay qabsatay marka ay keentay EVC Plus Soomaa mobile wallet kan marka ay keentay ay suuqana qabsatay marka laakiin xogaa suuqa dawladda suuqa marketka qayb waxa la destination qayb waxa la telecom laakiin labadaas dhintaan waxa uu keenay yaa dilay isgaarsiinta waa loo telephone call hadlay waxaana dhaha airtime ka kulli waa loo hayo internet xogaa waxa la iska hahay laakiin waxa keenay maxaa waay EVC Plus ka shirkadda hormuud macaamiisha way qiimeysay soo kordhisay they choose a new value service ayay kordhisay and they do provide web bixiyaan and then communicate waxay inta soo boorek bixiyeen waxay qabteen seminaaro badan ay bixiyeen taas waxay keentay in dad customerkii Soomaaliyeed 100% ay guuleystaan marka ganacsiga asaaskiisa ama laf dhabarkiisa maxaa u ah if your business want to succeed you can start a small business ganacsiga la bilaabi kartaa you can be a small manager ee noqon kartaa manager business ee noqon kartaa but you must have something unique waa inaad leedahay shay dadka in ugu duwan tahay waa inaad leedahay wax arabta waxay ku leeyihiin markii wax la hadlayo waxay leeyihiin almiza at-tanafusiyya wax aad dheer tahay competitive advantage ama value proposition waxyaalahaas dhan maxaa waaye wax adig ku secret laakiin maanta waxaa bilowday inta waxa ka furan maqaayad waxay kaleeyaan bariis baasto iyo waxaas kaleeyaan maxaa la kalaanka busteeki gadaan adee waxa ka bariis baasto wax value ma soo kordhin laakiin maqaayadooyinka waxa ka furto sida maqaayadan saytuun ka akintid digaag oo dab lagu shiilay oo inta lagu duubay qasdiir ama aluminium luxul la geliyo oo loo bixiyay laxmindi marka keentid oo hilib geel shiilay digaag dadka maxaa la waa qiimaysan macaamiisha waxay u baahan yihiin macaamiisha waxay u baahan in laga fakiro inta aan wax loo qaban karo that's why feel success factors waxay wax uni ku gaaray dadka guuleystay ee iska guuleysan this is the most important ideology fikradda ugu muhiimsan oo la rabo qofka as a businessman waa inay keento the location sometimes can become a value meel muhiim ah ganacsiga furto the value macaamiisha waa qiimaysan meel muhiim dawladda ay qiimeynaysa Kotler examples of value delivery marka hada waxa kamid ah nina wuxuu leeyahay waxa uu aaday Balbeeri magaalada geeskeeda maxaa yeelay dadka hore waa ninka markuu u tago wuxuu uga sheekeynaa waxyaalo hore u sheekeynaa nin waagi hore dawladda barsaas ninka kaas hore marka sheekeyntaas inta tunta u jaraa lacag ma ku bixayso waa may waa free qofka muu qiimeeyo taksiila qaatay xamar dhanku wuxuu kaaga sheekeynaa intaan wixii hore kaaga sheekeynaa in waa qiimay many examples marka maxaa lahaa waa value maxaa la tacriif dul waxaa leedahay something for free wax lacag la'aan laakiin macaamilka uu qiimeynayo oo wax badan ku taraay that your competitor don't provide la tartamahaaga ma bixiyo waxaas waa secretkaaga wax adig ku gaarka ah waxayna sometimes waxay noo qataa Soomaalidu value ay bixiyaan maxaa waa qiimeynta u badan ay bixiyaan ku soo tamaan maxaa waa price kantigiis waa is value creation process kamid ah maxaa macaamilka qiimeynta lacagta ka dhintay it's not alone waxa kamid ah features ka kamid ah waxyaalo badan sameyn kartaa okay qofkas inay fahantiin umaleena qofkan daa fahantiin asaaska bugan Kotler iyo maadada dhanba marketingka iyo curriculumka MBA wax badan ayaa kaaga sahlanaya as a businessman dad ka rabtay inaad u fahanto sectorka inaad ku shaqaysteen ayaan wax badan ay ka tari kartaa marka nin waxa jira oo Michael Porter oo khubarada culimada ugu caansan ee kamid ah 1988 jaamacadda wuxuu ka shaqeynayay dhaho hadda fadil adwan waa living legend oo soo saaray wax dhahayo the value chain waxyaabo badan uu leeyahay kan kaliya malahan
وليه مثل هاي بورتر 5 فورس مودلز تقدر اللي مانجمنت مودلز بدون وليه نينكاس مودلز وليه waxa kamid ah process ka lagu abuuray how can you create maxalki value qiimeyntan sidoo abuur kartaa maxaa abuur wadada aad u maraysid maxaa waay silsilada qiimeynta maxaa kamid ah marka lagu kala saaraa wuxuu kala saaraa primary activities iyo support activities inbound logistics ayaa jirto operations ayaa jirto ay afarta mid kamid ayaa ka dhig kartaa meel ma dhig kartaa kadib procurement human resource technological ka كده حتى شغاله marka dhar gooni اللي بسيهين soo dhaweentooda marka ay fiican tahay and be a value qiimeyn ka mid tahay shaqadaas wallahi bi alaabta qaaliga waxaan u xisha u aada shaqaale xabisan ka shaqeeya shirkad diyaarad waay bismillah gabdhaha xafiiska fadhiyo say ku soo dhaweynayaan ma maleekas ya shirkadan waa jeclahay marka waa jeclahay qiimeynta saas waa jeclahay qalbiga ku jirto inta business kala sheego ergaas qalbiga ka soo baxay xoog ma business core business process maxkamada fulfillment management balqaadka aqaadi waxyaalaha aad sheegtay shirkado kale isbitaalka xaysiin isbitaalka ka saarnaa waxaan haynaa intaas cudurka san ka daaweyna marka aad tagtidna waxa ku dhacayo satisfaction waxa wax ka filaysaa customer acquisition new offering realization market sensing waxyaalaha kamid core competence maxkamada in la koobiyo karin difficult to imitate usually in wide variety of market contribute to perceived customer benefits macaamiisha inay ku tarayso waxaan ashiis macaamiilka inay u tarayso laakiin waxa loo baahan tahay inta ka waran shirkadaha qaarkood maxaa la hadda taas gartiinta waxay soo kordhiyaan software aan rabin hadda shirkadaha la dhabar rabin shirkadaha qaarkood waxay soo kordhiyaan waxaan shaqeynayno marka dib ku dhac maxaa waaye value creation process ayaa ka halaa value creation process ka waqti aad u badan maxaa yarda ku guulaysto waa meesha wax ku dhaaf lahayd fikradda EPC maalinka la keenay ka waran ama zaad markii lagu bilaabay ilaa inta ay gaartay shirkadaas ilaa inta ay ka bedesho macna qof Soomaaliyeed xamal ku noolaa kar asoo haysan simkaar rumada you cannot live without simkaar rumada macna hadafka la lahayn taas ay mugta dan talagal ay taas ay dad hadda markii shirkada inay ku fikiraan inay sameystaan somtal aydan ay keentay maxalkii maxaa idahab ay keentay nation in hadda notion kalma qala inta waxay keentay barnaamij la dhaho waxay keentay magaco lahay هذا كون عصب أي نتقول حكي كان أو أمثال إنك تسوق ولا سوق قرين ما كله كفكرها يعني لكن واحد لما حاول أيام كبعد معنا ممكن يسوق كل الشركات ده أي كفكرها أي كملها أي نتقول حكي كان كفكر كلام شركة كل عصب وأي كفكر كلام واحد شركات ده أي سامين أو كفي عن ويهاره أما كختصر أي كفكر كلام أوكي اوكي marka oo maasantiin muhiimadda horta ugu badan ee laga leeyahay waa arintaas okay holistic marketing isla kiila waa holistic marketing waxa waaye marketing wuxuu soo maray process badan oo soo maray marka waxa la jiray sales marketing maxaa la haayay marketing oo promotion marketing waxyaabo badan hadda waxaan maraynaa holistic marketing marka marketing maxaa marka horeyso value creation number 1 qayb ka bilowda value delivery iyo value exploration strategic planning qaybtii hore value inta uu soo bixina muhiimadda kale waxaa waaye businessman waxa u baahan tahay waxa la dhahaa inaad leedahay portfolio maxaa laga wadaa portfolio waa boorso khaanado badan leh soo baahan markii English ahaan loo fiirsho portfolio waxaa laga wadaa don't put all your assets in one basket business kinu leeyahay qaybo badan for example waxaa laga warshad weyn qayb saabuunta shirkadaha weyn sida hadda Nestle oo kale ama BG Procter & Gamble oo kale ma qayb leedahay wax tiro badan ay leedahay qaybo badan oo kala duwan ay leedahay hadda ninka waxa dhici karta inay u taqaanin maxaa lahaa oo saabuunta doof in shirkad gooni tahay oo umada shaambada maxaa la head and shoulder shirkad gooni in leedahay waxna waa sub brands shirkadda weyn waxaa lahaa Procter & Gamble lahaa insha Allah I will share with you waan share gareyn doonaa insha Allah shirkadaas kale qayb kasta marka gooni u bixisaa laga rabaa waxa la strategic business unit meesha ka bilaabanaya qayb kasta in gooni loo bixiyo establish strategy mid kasta in gooni loo bixiyo hadda shirkadaha waa sameeyeen hadda habshiil oo kale waxay leedahay banki international qayb waa xawaalada qayb waa idahab qayb waa somtel qayb waa waxay leedahay qayb oo koronto oo ku taala Hargeyso waxyaalo badan ayay leedahay xamar xataa shirkadan waa aragtay Hyundai oo keentay waxyaalo badan ayaa jiro
hormuud aragtay isaan banka intaaj hadhiin waxa maxaa lahaa shirkada isku hormuud hadhiin EFC waxyaalahaas waxa waaye sub groups hadhow maxaa dhacay qaybtan haddii xun tahay waa iska jiraysa shirkada kadam ka dhaawacayso laakiin shirkada la isku dhaxayso oo ay dhistay dhibaa ku dhacay marka waxa shirkada kala jajar qayb kasta gooni bixi qayb kasta gooni bixi business ku koray waxa kamid ah inaan samaysto qayb kale maxaa dhacay marka maxaa lahayd don't put all your assets in one basket haddii ukumaan hal meel ha ku shubin haddii wax ka halaado meelaha kale ayaa ku fiicnaanaya waxa waaye waa strategic how to reduce riskiga in lagu yareeyo marka strategic planning Soomaalida badan ma lahan shirkadaha badan maskaxda ku haystaan ama sameeyaan qorshe badan ma sameeyaan Soomaalida badan waxay horumariyaan implementationka hadda maanta lacag lagu siiyo inaan qorshe dejiso 20 page plan aad dejisid iyo inaad dukaanka soo ijaaratay ku sahlan 20 kun shirkada aad shaqeeyska qaadatay waxa la wada qooday albaabka bax 20 kaasi kun ma hay adoo wax arkaysaa fakir laakiin anta meel fadhiistid ama dad khubra arraasatid oo adjust plan adjust corporate plan adjust division plan asmaysid board planning asmaysid research asmaysid afakatid kabacdi plan implementation asmaysid marka uu soo dhacaya sana fiican walaal sida kale adoo samaysid inaad guuleysatid qasab ma inaan wax ku qortid oo guush agaad guush waxana wax la xiriiro ilaahay tawfiiq rabbaaniga xaq ilaahay kiska imaato laakiin gaalantigu aaminsan guush kuma xiran maamul wanaag oo waxayna laakiin dad soo shirkadaha guuleysay Microsoft iyo waxyaalahaas dhan ma dhahan shirkadaha maamulka fiican ee waxayna fortunate ama fortunate dhahan that's why dhahan 500 fortunate companies shanta boqol oo shirkad ay nasiifatay markii la hayay Microsoft iyo Google iyo waxyaalahan Facebook iyo Toyota waxa la sheegay dhan control last step always or corrective action markii wixii la sameeyay in waxaan ay guuleysteen in la fiirsho ama in la fahmo فهمتين marketing plan waa meesha u socono oo ah hawsha aan rabno inaan sameeyno oo in wax dhan ku xirantahay marketing marka aad sameynaysid qodobka ugu muhiimsan oo laf dhabar ku ah waa in leedahay at least 15 pages oo qoran oo marketing plan ah marketing plan is your road map xagee aadaysaa ma bidix aadaysaa ma inta aadaysaa dadka dhan waa leeyihiin marketing plan laakiin marketing plan ka aan rabno anaka waa marketing plan qoran khaanada ku jiro lagu dhaqmaayo marka aan sameeyno shirkadaha aan u sameeyno as consultant marka uu shaqeeyo la taliyaha shirkada uu sameeyaa su'aasha ugu raasmay waxa waaye qorshe malid qorshe walena qorshe waxa waaye sanadkan tusina ku kuleysano kala daba kismaayo aad rabnaa gobolada tawaabiloon hadda anaga sidii hore manoo siciido manoo muudid meelo badan rabnaa inaan aadno hay waaye balaankiina qoran inta saxaanada ka soo bixiya arkay markasta inta maraysiin ma qoran laakiin inta ku jira xaaji maskaxi xaaji waxaan habeenka ku soo maskaxi isbedelaysaa qorshe kala ku soo dhacayo ya xala sameeyna ما أنا كنت سبب كسم كدرنا مركب وحنا محاول as a business you must have a plan and that plan must be written وإنه قريان plan كسر محاول إنه قريان هي وإنه لا فهم سين هي أيضا وإنه جرا marketing plan very good slide كان marketing plan كلابو كابها analysis SWOT analysis كي best analysis كي وحنا إن سميسيد strategic level كبعد سميسيد targeting what's your target my target is a Somali woman دوما كان target لسنا my young and my target is the Somali diaspora كدن اسميسيد value proposition قرشيه دماتنا كسو هادلين وين دجسه something unique ندج كبعد المحاوله tactical products كنا اسميسيد محلها future skill برمت حيسنت مهرميه مشاريع لاجين يونيفرسال لاجين برايس قيمه جنس سيلز جنرال سكيل انت سيلز جنرال محلقه اريا كعبسن waa بليس كلا شيء tactical dadka la waa 4b da meesha ku jirta wax kala cusub lama اريا waa mar waxa la tactical mar waxa la 4b mar waxa la marketing mix oo kulligiis kuma duwan macnaha waa qaybta fulinta marka maxaa waaye qaybna waa dejinta qaybna waa fulinta marketing ma labadan oo qaybsama strategic iyo tactical dadka Soomaalida badan waxay u guuraan tacticalka oo qorneen waliba sida general ku xawaa baliiska inta ka furaysa isku aan yara rabto inaad furto xagee ka furaysa marka mukarrama ka furaysa xamrooyin ma ka furaysa xagee ku gadaysa waa macnaha baawo ku kisma gadaysa sida general maxaa la eri aad u dhigay marka waxa gadayta online Soomaali ayana aad u sahlan tahay marka dejinaysa strategic plan inta u maraysa steps-ka define corporate mission, establish SBU, assign resources, assign growth and opportunities. Corporate mission sida loo qorsheynaa in sida waa very important ya macaamiil macaamiisha sida loo kala fahmayo mid kasta qorshiisa iyo sida loo sameynayo asagana waa very important qof kasta inuu fahmo intee loo maraa waxaan intee loo sameynaa marka sameynaysiin marketing planka ama qorshaha dhan waxa asal u ah oo ugu horeeyo waxa la hayaa characteristics of good mission focus on limit number of goals ka hadafka allada inuu ku cadiyeen mission statements ka waa inay ku cad yihiin waxaan statement sample ah oo adduunka jiro Google kale Google maxaa la mission ku fiiri waxa waaye to organize world information macluumaadka adduunka in la aruuriyo and make it universally accessible and usable ninkan Vogue shirkadahan la haayo we build brand
and make the world little happier by bringing our best to you. Google philosophy wada waxyaalahan strategic business unit ka soo sheekeynay marka la sameynayo falsafada ama waxyaalahaas strategic business units ka SBU da ayada muhiim u ah in customer la kala saaro customer need goon loo bixiyo shirkado badan kala duwan jirto shirkadan la Union Pacific haraka shirkadan la hayo shirkado badan kala duwan product definition kooda iyo market definition kooda Soomaaliya waxyaalahan badan in ma gaarin in shirkada market definition iyo product definition in gaaraan Boston Consultant Group BCG waxaan leeyahay falsafada kan waxay kamid tahay shaybaarada shirkadaha la saaro shirkadaha ina cabirtid laba mid kamid ah saaraysa أنا بدنا نقاشكذا وسمينايو أن داوينايو أشياء إن داوين ربع ما دي كركس ما عبره أنا حنكون داوية وعبرها أما صوت أناليسيس كان جعلها بدنا بيست كاس استعمالها أما حاس استعمالها بي سي جي مرة استعمالها مكنسي 7 وأتربى هذه المودلز لو عبر كلا شركة أيضا شركة إلا إنه يقولوا سكرت إلا صار داون سايس مش كده حر هذا مش ولا حرة أصلا ما أنا شيء eliminate business unit strategic planning أنت جاب أنت كجرا أنت فرق كجرا أيضا إلى في شو أما إن الأولاد كان شركة أنتو بقولوا سكرتها ماشي أكو فيها ناس يصير الله سمينا يو حيالها الربع إن الله سهروا شركة هذا قالوا شركة وحدك المسير يقولوا سنيسها مهرمر كرتها وحيال الربع من الأولاد شركة كارجر ملاذ ماركت إنوفيشنز كمجران أيضا إن الفهمسين هاي أيام مهمة سلايد كان مهم وهي مثل سمينا بيزنس ميشن يبروسيس كل مرة أيضا إن الفهمسين هاي أما شوت أناليسيس كان ذاك شكينا هواي goal formulation strategy formulation insha Allah kuwan si details ayaa maadaama assignment in dir rabo oo group kasta aan ka rabo inay sameeyaan eedana muhiim waa slide ugu muhiimsan slide kan waaye marketing plan ka aan ka rabo processkiisa wax sidaan excessive summary la sameeyo situation analysis la sameeyo marketing strategy financial project in la sameeyo بعد insha Allah xisada daba insha Allah subhanahu ku shaxdana dabtarkan maanta intaas ku egahay bila tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh